قصة waxaan idinla wadaagi doonaa kishki iyo mowduuca lagu haysto cadaynteedana waa idinla wadaagi doonaa waxaan idinla wadaagi doonaa mowduuca ayaantan la isku haysto iyo kishki sababta loo haysto dad badan baan mowduucan fahansaneen una qaatay rag iyo dumar is haysta iyo mowduucyo noocaasa xaasha lilah barnaamijkan ma quseyn rag iyo dumar iyo isku dirkooda iyo isku horkeenkooda rag laan iyo dumar laana mowduuca ma quseeyo mowduuca socda wuxuu ahaa nin la yiraahdo kishki oo sawirkiisu halka idii ka muuqdo ninkan mowduuca uu hadda umada ku dhex wado ma ahan wax barnaamij uu hadda soo bilaabay waa 9 sano ka hor barnaamij uu bilaabay oo uu joojiyay oo uu ka toobad keenay oo 9 sano kadib uu dib u soo rogaal caliyay ninkaas xilligii uu soo shacbaxay wuxuu bilaabay inuu axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan uu beeniyo axaadiis daciifa uu saxiix ka soo dhigto kuwii saxiixaha uu daciif ka dhigo wax badan oo jiray uu beeniyo xijaabkii uu beeniyo waxyaalo badan oo diinta ah uu been ka sheego ninkaas xilligaas dadka qaar wuxuu ku boorin jiray inay diinta islaamka iskaga bixi karaan oo diin kala qaadan karaan ninkaas dadka uu lumiyay oo calaamada macatabka u saaray waxa kamid ah nin dad badan yaqaanaan oo la yiraahdo Maxamed Dinos oo sawirkiisa halka ay soo dhigi doono Maxamed Dinos uu gaal ka dhigay oo waliba Maxamed Dinos oo aad ogeydeen inuu marna diinta islaamka caayi jiray marna nabiga caayi jiray sallallahu alayhi wasallam oo xumaanta inta leeg oo umada la dhex wadaagay ninka lumiyay oo barnaamijka ku hagay oo barnaamijka ku waday kishki buu ahaa sidoo kale rag badan oo naasa samaystay oo dumar isku bedelay ninka ka dameeyay mowduucaas iyo in loo fatwoodo iyo in sida lagu dhiirigeliyo kishki buu ahaa kishki xilliga uu soo baxay waxa buriyay oo ka hor yimi culimada Soomaaliyeed Allah khayra ka siiye Sheikh Shibili baa kamid ahaa dadka cadeeyay waxyaalaha xadiista uu been ka sheegayo iyo diinta uu suurad xumaynayo Sheikh Shibili baa koow ka ahaa culimadii ku mudaharaaday oo runta u sheegtay oo umadana runta u cadeysay ninkaas xilliga markii lagu soo jeestay oo umad badan ay culimadu ku soo jeedisay runtana u cadeysay mowduucii dhan wuu iska laabay muuqaal dheer buu soo duubay uu kaga raali gelinayo ummadii uu u fatwooday iyo xumaantii uu umada dhex keenay inuu raali gelin ka bixinayo uuna toobad keenay buu xilliga cadeeyay fatwo walbo aan jeediyay ee door ku lahayd muslimiinta inay kala jabaan in aan ka soo laabtay kana toobad keen waa kan kishki oo soo laabtay 2025 isagoo barnaamijkii sidii uu ku waday si ka duwan u wada kishki maadaama ay awal hore culimadu ku kaceen mowduuca uu ku soo rogaal caliyay waxay noqotay in uu ka bilaabo culimada laftigooda inuu suurad xumeeyo ceebeeyana kishki wuxuu isku urursaday dhalinyaro wada lunsan iyo qaar caama ah kuwaasu gruubyo u sameeyay wuxuuna u bilaabay mowduuca in ay culimada aflagaadeeyaan oo ceeb ka sheegaan oo waxa ay dhahaan si kale u bedelaan si alla iskaga horkeeno bulshada Soomaaliyeed qaarka aanan waxba baran iyo culimada Soomaaliyeed leen dukaan markaa furatid dukaamada ka agdhow oo dhan waa in aad ceebaysid si dukaankaaga wax looga gato ninkan barnaamijka u socdaa waxay tahay si uu barnaamijka uu wato ugu socdo ma garanayo muraadka uu ka leeyahay si uu ugu socdo waa in isaga la dhageysaa si isaga loo dhageystana waa in culimada kale laga soo jeestaa oo la nacaa oo la ceebeeya oo bulshada ceeb looga dhigaa culimada loona caaya okay sheekh walba oo YouTube ku jira ama khudbad soo jeediyay khudbada uu ka hadlayay arrimaha diiniga oo ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa ragga xunxun xumaanta ay sameeyaan iyo abaalmarintoodu inay jahanabo noqonayso iyo dumarka xunxun sidoo kale iyagana abaalmarintoodu ay jahanabo noqonayso dadka waxay ku midoobeen in ay soo qaataan culimada qaybta ay dumarka ka hadlayaan iyaga oo tafaasiil iyo hadallo kala saaraya kana dhigaya culimadu inay dumarka kaliya wax ka sheegaan oo dumarka kaliya ka sheekeeyaan waxaan idin soo qaadayaa sheekh ay hadalkiisa bedeleen oo muuqaalkiisa ugu yaraan ay ka daawadeen beejajkooda ugu yaraan 500,000 ay ka daawadeen iyo hadalkooda sida ay u bedeleen iyo meesha ay ka bedeleen ila daawo sidoo kale waxaan ku soo qaadi doonaa muuqaalka asalkiisa sida uu yahay iyo mowduuca uu sheekha ka hadlayay waa kan sheekh la yiraahdo Maxamuud Xaliike isaga oo ka hadlaya dalaaqa qaybta ay ka soo jarteen bal gabadhan ila daawo hadalkiisa intay ka soo qaadatay iyo hadalka ka dameeyo ay sii saartay inuu guursado inan yar oo aan wali caadadiiba helin inan yar oo aan caadadii helin buu guursaday kadibna waa furay markay kulmeen ka bacd عدده waa la yaqaanaa
gabadha yar aan wali caadadii helin hadii nin guursado furo iimaanka alla ka qaad caada qaata biil faar qaba umada alla ka soo qabay halkay kaga taala diinta ilmo yar baa la guursan karaayo ciday la fahamka diinta markuu kugu qalloocdo waxaanoo miiran bad iska aaminaysa caada qaataanoo miiran intuu mikrofon iyo masaajid helo uu awlaada yar yar halka kaga tacadiyaya iga degdegin waan kuu soo wadaa muuqaalka sida uu ahaaye kan kalena bal ila daawo isagana ninku inuu guursado inan yar oo aan wali caadadiiba helin inan yar aan caadadii helin buu guursaday kadibna waa furay markay kulmeen ka bacdi ciddadeeda waa la yaqaanaa gabadha yar aan wali caadadii helin hadii nin guursado furo waa 3 bilood subhanallah ilaahay nagu ma cadaabo noogu mana caroodo ninkaas hadalka ka soo yaray daraadiis haddaad ogaan lahaydeen hadalkaas miisaanka intuu la eg yahay wallahi meeshiis intaad ugu tagteen ayaad ku qasbi lahaydeen inuu ka soo noqdo hadalkan wuxuu dhahay gabar yar oo saqiir ah ayaa loo galmoon karaa okay hayga degdegin muuqaalka sheekha waan kuu soo wadaa labadan kaliya hadda soo qaatay kuwa badan baa jiro saasoo kale muuqaalka intay u soo qaateen inta soo bedelay oo hadalkooda dul saaray laakiin waxaan ku tusinayaa intaan muuqaalka ku soo qaadan hadalka meesha laga bedelayo yarta ah oo loo qurxinayo laga dhigayo sidoo ahaa maahane si kale sheekhaan horta wuxuu ka hadlayay muuqaalku halkaas uu ku jiraa waa mowduuc dheer oo hal saaca wuxuu ka hadlayay furniinka dalaaqa buu ka hadlayay okay diinta islaamka qofka guur mari kara oo galma geli kara oo mowduucaas furniinka mari kara kaliya wuxuu noqon karaa qof baaluq ah qof guur soo maray waa qof baaluq ah sababtoo ah lama guursan karo oo guri lama samayn karo qof aanan baaluq ahayn diinta islaamku iyo sheekh walba oo diinta islaamka si sax ah u aaminsan intaasuu aaminsan yahay sheekha markaa waxa uu fasirayay aayadda ah wallahi ya isna min al-mahiid min nisaa'ikum oo macnaheedu uu yahay dumarka aan dhiiga caadada helin dumarka dhiiga caadada aanan helin yaa soo galaya dumarka marka la furo dhiiga helo caadiga oo aanan uurka lahayn 3 quruun bay tirsanayaan muuqaalku waa dheer yaada sheekha ka soo daawataan 3 dhiig bay tirsanayaan laakiin waxa jira marka dumarka dhiiga laga soo tago dumar waaweyn oo da'doodu weynaatay oo sida dhiiga ku joojiyay iyo dumar weyn waxa lid ku ah dumar yar gabar yar okay tusaalan ku siinaya ninka marka la yiraahdo war hebel gabar yar buu guursaday macnaheedu ma gabar saqiir oo ilma caruur u guursaday macnaheedu waxaan guursaday gabar yar baan guursaday marka uu qof yiraahdo macnaheedu cidna uma fasiranayso saqiir yar buu guursaday laakiin qof hadalkayga gadinaya wuxuu ka dhigi karaa oo saqiir buu guursaday caruur buu guursaday laakiin anaga Soomaaliyan gabar yar waxa noo noqon kara gabadha 30 iyo inta ka yar ilaa da'da qaangaarka jirta intaas waxay noo tahay gabar yar 19 18 20 25 intaas waa gabar yar sheekha hadalkiisa wuxuu ka wada oo yiri oo ka hadlaya dalaaqa iyo furniinka soo ka hadlaya gabar weyn oo dhiiga caadada uu ka joogsantay furniinkeedu sida aayadda quraanka ay sheegayso waa 3 ashhur waxay tirsanaysaa 3 bilood ilaa gabadha dhiiga la iyadu 3 dhiig bay tirsanaysaa gabadha weyn iyaduna waxay tirsanaysaa sidoo kale oo aan dhiiga lahayn 3 bilood sidoo kale gabar yar oo waxa jirta iyaduna dhiiga caadada aanan helin iyaduna sidoo kale waxay tirsanaysaa 3 bilood muuqaalka sheekha balorta ila daawo waxa jira dalaaq iyo furiin dumarka la furo dalka eeg ayaa jira dalaaqaas oo culimadu yiraahdeen ma aha dalaaq bidci oo muharrama mana aha dalaaq sunni ah bay fuqahadu yiraahdeen waxa kamida dalaaqa caynkaasa ninku inuu guursado inan yar oo aan wali caadadiiba helin inan yar aan caadadii helin buu guursaday kadibna waa furay markay kulmeen ka bacdi ciddadeeda waa la yaqaanaa gabadha yar aan wali caadadii helin hadii nin guursado furo waa 3 bilood talabaad waxa weeye islaan sinni goos ah oo caadadiiba ka quusatay oo weyn shayba ayuu guursaday ninkii ka bacdina way iska furay oo la oran maayo waa khaldayn dalaaqaas oo 3 bilood bay tirsanaysaa وكذلك ننكو هديئو قرصدو قف دمرة حدنا مركو قرصدي إساقو أن مركا الرقين وولي آني
u galmoonin buu haddii alla idmaayo furay gabadhaa furiinkaa uu furay waxa weeyaan waa dhacayaa furiinkii wax ciddo ana ka tirsan mayso dee ciddada marka la tirinayo waxaa la hubiyaa okay muuqaalka shiikha ma waxaad ka dhex aragtay meel uu ku yiri sida iyagu ay hadalka u dhigayaan gabar yar ha loo galmoodo iyo gabar saqiir ha loo galmoodo iyo caruur ha loo galmoodo sida iyagu ay hadalka u dhigayaan shiikhu ma waxaasuu ka hadlayay shiikha waxa uu ka hadlayo furniinka gabar weyn lidkeedu soo qaatay oo ah gabar yar oo iyaduna dhiigga caadada aanan helin waxa jirta gabar 25 19 18 20 21 jirta oo dhiig aanan weligeed helin baa jirta kuwa uu aad uga soo daaha baa jirta quraanka ilaahay wax walba noogu sheegay maadaama kuwa aysan saddex dhiig tirsan karin waxay tirsanayaan 3 bilood ummadda noocaasa oo kale oo munaafiqiinta oo ummadda hadalkooda bedelaya ama soo jarjaraya ama inta dumarka kaliya soo qaadanaya ba ummadii soo dhex gashay waxa ay munaafiqnimada ka socota oo mowduucyadaas oo dhan ay ka socota oo ummadda sharwadayaasha ummadda u soo diray waa kishki laakiin isagu hal mowqif uu leeyahayo waa mowqifka ah in la isnacsiiyo bulshada intooda aanan wax baran iyo culimadoodii wuu yar yahay qof Soomaaliya oo intuu sheekh YouTube-ka ku qoro maxaadiradiisa hal saaca soo wada dhageysta wuu yar yahay maadaama aysan taadhicin dadka caamada ay u sheekeeyaan bay waxay ka soo jartaan muuqaal bay in yar ka soo jartaan in yar oo dumarka ku saabsan bay soo jartaan intaas oo kale soo qaataan hadal tacliiq bay saaraan dadka aan la hadlayno oo aan wax u sheegayno oo aan ummadda uga digayno waa dadka noocaas oo kala waxaan idin tusinayaa mar kale gabar sidaas oo kale ay duufsadeen oo aamintay muuqaaladan ay soo jarjarayaan oo afkaarteeda soo gudbisanaysa bal gabadhan siday ugu kadsoontay iyo shiikha inta hadal ay ka dhaxdo iyo cuqdada ay u qabto shiikha bal gabadhan daawo garoobkuna waa sharciga islaamka qaba ilaahay baan nabigeena noo duceeyay nabigeena sharafta badnaa noo duceeyay diinteena noo hiilisay walaal garoobku waa nasteexay wax ilaahay keenay ma fahanti ninka garoobada caynahaya ninka nagu tiiqtiiqsaday ninka sharafteena meel uga dhacay anigu waxaan qaba haday muslimiinba jirta ninkaas in la soo xiro duu qurbaha joogo inuu gaalada loo dhiibo in jeelka la dhigo in la dhibaateeyo baan anigu qaba waayo sharafta yaa aranatin sharafteena meel uga dhacay walaal ma fahanti gabdhaha Soomaaliyeed kaca gabadhan ninka ay saa u caynayso oo saa wax uga sheegayso waa shiikhii aan muuqaalkiisa idii soo qaatay oo aan ida tusay inta ay ka soo tageen iyo inta ay soo qaateen iyagoo ka soo tagay intii uu shiikhu ka hadlayay ragga garoobada bay waxay u soo qaateen intii dumarka garoobada hadalkii bay daawatay way aamintay iyagay aaminsan tahay shiikhaas isa ugu dhaarsantaa ummadda waxa ku dhex jira rag dumarka neceb oo nacaybka ay dumarka u qabaan ka soo qaaday caro qof kale oo ay xiriir la lahaayeen ama guur soo maray sidoo kale waxa ku jira gabdho rag dhan u neceb qof xiriir ay la lahaayeen ama qof guur ay soo mareen ummadaas oo kale laga faa'iideystaa caadifadooda la sii kiciyaa xamaasada ku jirta iyo hadalka in laga dhuro ay u baahan yihiin baa waxa la dhahaa nafis dadkaas loo sheekeeyaa laakiin waxa loo dhexmarsadaa dadka fariinta ah in diintooda loo nacbaysiiyo in diintooda foolxumo looga dhigo cidda ay diinta ka soo dhageysan lahaayeenna in burush xaar la mariyo oo ceeb laga dhigo mawduucan waxaa ku soo gabagabaynaya oo ku cadaynaya mar kale ma jiro wax la yiraahdo dumar nacayb iyo rag dumar nacayb iyo dumar rag nacayb xaasha lillah anagu haddaan ragga Soomaaliyeed nahay dumarkeena waan jecelnahay waa hooyadeen macaan waa walaashay macaan waa gabdhahay quruxda badnaa waa xaaskayga nin kasta oo Soomaaliyeedna dumar saasay ugu heeraarsan yihiin waa habaryarahood waa eedooyinkood waa ilma habreedood gabar kastana sidaas oo kale qaraabo iyo walaal iyo ina adeer iyo aabe u leedahay qof rag neceb iyo dumar rag neceb iyo rag dumar neceb waxaas mawduucaas dad caama ah la wareega oo aan waxba kala ogeyn nacaybkaasna wuxuu gali karaa qof doqon oo damiir lahayn ninkii dumar caaya oo dumar necbaada oo dumar ceeb ka sheega isaga ceebaysan isaga qof xun ah dumarka oo dhan hal qof ma ahan qofka dumarka necebow ragga oo dhan hal qof ma ahan qofka ragga necebow dumarka iyo ragga
إلهي با ودا أبورتي إلهي با أدون كان ودا كيني إلهي إنا عابدو إلهي أدون كان نو كيني آخرا مركا آن تغنانا عمل كيني آن صوب سميني بانا لك أبال مرين وهدان خير كلها جننا لكو جين هدان شر صوب سميننا جهنمنا لكو جين إلهي سبحانه وتعالى وحير من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي مكلا صارين رق يضمر قف كستا أو رق يضمر كمذا وعمل وناكسن سمية رق يضمر نوع يدونان هذا الدون كان نلق روح بدن بو إلهي سين آخرنا جنو كوجين دين هذا معان برو دين هذا معايا لقوع عيبين دين هذا معايا لقا صارين دين هذا معان يانا وحلقاق الشيقين ogow labay kala tahay inaad diinta boqolkiiba boqol say tahay ugu dhaqantid waa dhaqan wanaagsan ilaahay inaga dhan saaha naga dhigo ilaahay hana hanuuni anigu baan iska bilaabay ilaahay hana hanuuniyo laakiin diintaada inaad aamini weydaa oo ilaahay aaminaadiisa lagaa shaki geliyaa oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam jiritaankiisa iyo aaminaadiisa lagaa shaki geliyaa waa daciifnime inta ha laga kasoo maalaska ilaaliyo waxaan ummadda uga degayno ma aha rag iyo dumar isnacnacabe waxaan ummadda uga degayno waa ninkaas sharwadaha ah oo ummadda sharka ku dhex wada ilaahay ummadda ha ka dhex qabto ummaddana waxaan rajaynayaa ummad badan inay baraarugtay arkeenna waxa uu ninkaa ummadda ku dhex wado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu